war-saxaafadeedkuna ay si wada jir ah u soo saareen gudiyadii isku dhafka ahaa ee ka koobnaa xukuumadda iyo jabhadda ONLF ee loo xilsaaray ururinta lagu sameynayo ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya si la isugu keeno goobo cayiman ayaa waxay si wada jir ah warbaahinta ula wadaageen halka uu xumarayo. waxaan rabnaa inaanu la wadaagno bahda saxaafadda warbixin kooban oo ku saabsan gudigii labada dhinac ee xukuumadda iyo jabhadda ONLF laga kala magacaabay marka dambana hal gudi la iskaga dhigay hawshii loo magacaabay halka ay marayso ayaan rabnaa maanta inaan wax yar kooban aanu ka dhahno hawshaas oo ahayd ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya gudigaas oo ka koobnaa laba dhinac oo min 7 xubnood ah dhanka xukuumadda waxay ka koobnaayeen 7 xubnood ay ka koobnaayeen dhanka jabhaddana waxay ka koobnaayeen 7 xubnood ay iyagana ka koobnaayeen 14 kaas oo markii dambe hal gudi isla ahaa laga soo bilaabo maalinkaas ilaa maalinka maanta aha qorshayaasha si wada jir ah ayaa loo qaadanayay waxa loo idmaday loo xilsaaran waxay ahaayeen oo kaliya tahay in ciidamada jabhadda la soo keeno goobo ama xiriyo labada dhinacba ay isla og yihiin oo runtii daraasaad fara badan lagu sameeyay markii dhinacyo fara badan la isla fiiriyeenna 5 goobood ayaa la isla qaatay oo tiimkii isku dhafka ahaa isla qaateen ciidankaas oo runtii ciidan aad u fara badan aha dhul aad u kala fara badan oo kala fogfogna ku daadsanaa saldhigyo ugu yaraan ilaa 12 saldhig aha ayay ku kala jireen waxaan ku guuleysanay alxamdulillaah si nabadgelyo aha tiimkii isku dhafka ahaa inay ku keenaan xeryaha 5 aha saadaradeed waxaan idin sheegaynaa haddii aad tihiin shacab weynihii dowladda Soomaalida meel walba adduunka joogtaan inaad waaga cusub ee bariyay aad sida uu bariyay una soo dhaweysaan heshiiskii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee la gashay dowladda Itoobiya qodobadii ku xusnaa qaabka qaar kamida weeye ciidanka in qaabka hadda aynu u maareynayno aynu u sameeyno dowladuna waxay matashaa shacabkii deegaankan hadda joogay iyaga ayaa hoggaan ku haya dowladda Itoobiya iyaga wakiilka oo u matala deegaanka sida darteed hawshii la wada galay ee la wada lahaa waxaan isleeyahay waa hawl loona baahnaa heshiiskana qodobada ugu muhiimsan ee loo gaadhay nabadgelyada ayaa kamid ahaa nabadgelyadana in la wada ilaaliyo waa waajib ina saaran xukuumaduna ay doorkeeda ka ciyaarto jabhadduna ay doorkeeda ka ciyaarto sida darteed dhankii xukuumaddu dadaalkoodii faraha badnaa ay sameeyeen iyagoo hirgelinaya heshiiskii la gaadhay waxaan isleeyahay ilaa hadda goldulooyin aanu tilmaano maanan arag waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu isleenahay siday wax u wadaan waa habboon tahay waana sidii uun kulley aanu ka filaynay jabhadduna sidii ay heshiiska u qaadatay inay fuliso weli way kaga go'an tahay sidaa darteed dhowr marxaladood ayuu soo maray ciidanku markii hawshan la galay runtii annagoo la kaashanayna deegaanka iyo fikirka la isla qaatay iyo labadii gudi markii u horeysay sahan gaar ayaa la diray oo ay dowladuna qaybtii ugu xog badnayd ay qaadanaysay xubnaha la dirayna ay ahaayeen keli ah hogaamintii jabhadda oo soo sahminayay yacnaa ciidanka wacyigeli badan samaynayay kadibna gudi waxaa la diray isku dhafa oo xeryaha munaasib ku ah ciidankaas iyagana soo sahminayay labada marxaladoodba way ku soo guuleysteen kadibna xilligii qaritaanka iyo meelihii loo astaamay in ay degaan ayaa la isla gartay 5 xero ee ay madaxdu hadda ay tilmaameen waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhamaan doonto gudigan oo hawsha ku jiray muddo ku dhawaad bil ah ayaa waxay si dhammaystiran u soo gabagabeeyeen wajigii koobaad ee hawlgalka lagu dajinayo goobo cayiman ciidanka jabhadda ONLF iyaga oo si midaysan dhammaan ciidanka jabhadda ay isugu keeneen 5 xero oo meelo kala duwan ku yaala wixii hadda ka dambeeyana waxay gudagali doonaan dhammaystirka shaqooyinka loo aasaasay gudigan.